allaha u raxmade waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasi doonaa xildhibaan cismaan cilmi boqore oo shalay gelinkii dambe lagu dilay degmada kaaraan. duugta marxuum ekis xildhibaan boqore waxaa ka qaybgeli doona mas-uuliyiinta ugu sarraysa qaranka, xubno ka tirsan golayaasha dawladda iyo eheladii uu ka baxay. madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoyska xildhibaanka iyo guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed, wuxuuna laamaha amniga ka dalbaday in baaritaan dhaba lagu sameeyo dilkiisa. sidoo kale waxaa ka tacsiyeyey geerida xildhibaan cismaan cilmi boqore madax uu ka mid yahay ra'iisul wasaare xasan cali khayre, guddoonka golayaasha baarlamaanka, guddoomiyaha maxkamadda sare iyo mas-uuliyiin kale. xildhibaan Fawsiye Yuusuf Xaaji Aadan, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda oo la hadashay idaacadda Shabeelle, ayaa si gaara uga tacsiyeysay dilka marxuum cismaan, maadaama ay aqoon dheer u lahayd islamarkaana ay ka soo wada jeedeen iyada iyo xildhibaanka gobollada waqooyi ee Soomaaliya. aad iyo aad waa geeri naxdin leh runtii, aad iyo aad baan uga xumahay. waxay nagu noqotay shoog. nin oday ahoo madax ka soo ahaan jiray baarlamaanka, xildhibaanka noogu da-da weynaa, aad iyo aad loo wada jeclaa. marka ilaahay u naxariisto, ilaahay carruurtiisa iyo qoyskiisa iyo annagoo dhan iyo ummadda Soomaaliyeedna samir iyo imaan ha ka siiyo. waa geeri naxdin leh runtii. xildhibaan boqore wuxuu ahaa nin aada u furfuran oo aad iyo aad u maaragtay dad jecel oo dadku isugu mid yihiin, oo daacada oo wadani ah, oo maaragtay hadalkiisa aan la laabanin. waxay la tahay markuu golaha soo galo ka sheega ra'yigiisa. marka ilaahay u naxariisto, ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo, ehelkiisa iyo ummaddiisana uu ka samiriyey baa ka siiyo. ninka imalo buu ahaa, nin aada u culusna wuu ahaa. xildhibaan cismaan cilmi boqore waxa uu xubin ka ahaa baarlamaanka Soomaaliya muddo dheer, isagoo ka soo gelaya gobolka Awdal ee waqooyiga Soomaaliya, waxaana haatan inta uusan geeriyoon lagu tirinayay inuu ka mid ahaa xildhibaanada ugu da-da weyn golaha. xildhibaan boqore waxaa lagu xasuusan doonaa sida dad badani qabaan in uu ahaa nin aan la gamban aragtidiisa marka uu ka hor hadlayo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.